السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين بميل كستان لغا داوانيسان كسو دوادا channel كاميرة خضرة بودكاست. maanta cidna la jafi maayo jafidina ma jirto. maanta waxaan rabaa inaan dhexdhexaad noqdo oo bal arrintan cirka isku shareertay ee meesha xun ku sii socota ee Soomaali Maxamed ba wada dawaqsay ee fiyuuska iyo caanimada lagu raadinayo ayaan rabaa inaan soo afjaro maanta sababtoo ah nimankani qaar baan batagin oo dhoofin oo laakiin ka dhiganaya fanfan iyo fiyuus aad ku heshaan iyo ku soo caanbaxay la dadkii caanimo laga raaciyay nimankani qaarkood caanimo ayaa meesha gelisay xumaan iyo cayfog ay u hayaan ma jirto maaldowdaan arkay mid lahaa naaguhu waa sida naaguhu waa ka waanaga leh anu waligay ma caayin mana caayayo laakiin wax jira sheegay bala adu anyway gabdhihiina qolal baa laga furtay sheeka meel xun maraysa ayay noqotay. waxaan rabaa balcaawa inaan kor istaago qodobada wiilashu ka cabanayaan iyo qodobada gabdhuhu ka cabanayaan. wiilashii waxay ka cawdeen in guurkii qaali noqday, in guurkii lagu qaaliyeeyay, naagtu inay qaylo badan tahay, inay baali tahay oo wasakh badan tahay, inay dee aduu ceebo fara badan oo meeshan aanu kusoo koobi karin ayay gabdhihii dusha ka ruuyeen. tawiilasha haddaan ku horumarno weliba guurka qaaliga ah waxaan u malaynayaa su-aashaas inay yihiin inay iyagu isweydiiyaan ka ah inaanay u oolin dumarka laakiin ay u baahan yihiin inay iyagu isweydiiyaan oo su-aashaas iyaga dib ugu soo noqonaysa sababtoo ah ninka gabadha iibsanaya, ninka lacagta badan ku xidhaya, ninka guurka qaaliga ka dhigaya waa nin waana aabaha gabadha waana aabaha gabadha. aabayaasha qaarkood iyagaa iibsada gabdhahooda. run miyaa la rabaa mise been? gabdhahooda iyagaa iibsada oo lacag ku raadiya. sida aragtaanba oday 80 jira oo qurbi ka tagay baa Soomaaliya wuxuu ku guursanayaa gabadh yar oo 15 jir ah oo 20kii gaadhin. waxaa la siiyay odagaas baa laga yaabaa ama reerkaas masaakiinta ah aan weligoodba arag $100 ama $50 oo isku xidhan aan aragba waxa la siinayaa $2,000. waa laba kulleydii Turkiga waa laba kulleydii aan sheegay Marokay Soomaaliya waa ka jirtay baa odaga la siinayaa gabadha madaxu qabanaya wuxuu oranayaa ilo weyna odaga guursataa. gabadha mustaqbalkeedii kama fikrin, gabadha rabitaankeedii kama fikrin, gabadha jiritaankeedii kama fikrin, gabadha inay ku diiqadoonayso odaga shiirshiiraya kama fikrin because dadku isku adooro ma aha. eej walbood gaadhid adooro gooniyaad leedahay. gabadh aan 20 gaadhin iyo oday 70 jir ama 80 jir isku adooro ma aha. wuu shiirshiiraya odaynima ka uraysa. gabadhu waa ku diiqadoonaysa, waa dhibsanaysa. xitaa barafuuna qaali ah oo adooraha dila marsadaan nimanka qaarkood. su-aashaas aad ka cabanaysaan waxaan jeclaan lahaa inaad idinku dib isugu noqotaan, inaad odayaasha waanisaan, inaad aabayaasha waanisaan. qaarkiin xitaa inaad already gabdhihiina gadateen waa laga yaabaa. inta hadda u soo koraysana aad ku tala jirtaan inaad iibsataan. su-aashaasi waxay u taalaa waa ragga, dumarka ma qusayso. dumarka mid ayay ku qaldan yihiin. meherka ay qabsanayso gabadhu markay gabar tahay mise markay garoob tahay. gabadhu wax walba waalidkeed ayaa ka mas'uula. iyagu waxay kula taliyaan bay yeelaysaa. haddii waalidku gabadhooda ku yiraahdaan meherka intaan la eg ha qabsanin hooyo ama aabe meher macquula qabso, gabadhu way yeelaysaa. laakiin tii garoob ahi tiraada ninka waxaa iga bixi isaguna yeela de isaga hawl u taala way taas. iyaga jirtaa, iyaga ka wada dhiilgareeyay. markaa bixisidna ha qaracmi sababtoo adaa bixiyay cidina kaama xoogin. haddaad bixisayna niyahow ha qaracmine saad u bixisay ha kaa ahaato. niman waaweyn oo maanta oo dhan shilin tirinaya, niman waaweyn oo 10 shilin tirinaya. mid baa wuxuu lahaa gabadhaba yaan la korin, yaan la kanaynin, yaan la keeraynin. waryaahi gabadh iyo rag horta isku mid maaha. waad ogtihiin oo gabadh iyo nin isku mid maaha. gabadhani maalinta la guursado habeen haddii la qabo la furo waa garoob, waa islaan weyn. abayuus iyo ceeb fara badan iyo aflagaado fara badan ayay bulshadii la nooshahay kala kulmaysaa. isaga hadday tahay, hooyadii hadday tahay, walaalihii hadday tahay, aflagaado fara badan ayaa gabadha ku dhacda. marka waxaan oran lahaa hablahana meherkan faraha badan ay ku xidhaysaan hala yareeyo. wiilashana waxaan oran lahaa aabayaasha waaniya oo wacyi geliya oo gabdhahana iibsanayaan ha joojiyeen. meherka yar baana qiimo badan, meherka yar baana qurux badan
oo sharaf leh oo diinteenuba sheegta meherkaa lacagta faraha badan la qabsanayo gabdhuhu waa ku qaldan yihiin haddaan leeyahay hadda ka horna waan ka hadlay kiliba horaan kaga hadlayna waa jiraan wiilasha weliba aan waalidkood joogin aan ayuuta loo gelayn ee hooyadii iyo aabihii dabaraynin waa ku dhib inaad tiraahdo hotel 10 kuna qabo meher 20 kunana isii 15 kuna hotel ii qabo sooriyadii iyo gabaatiga u dheeryahay meherkaagii iyo isna 30 kun ah way ku adag tahay waana ku qaali runtii taas waa run waana ku qaldannahay waana run dumarku waa ku qaldan yihiin waana ku gardaran yihiin arrintaana anigu mar walba waxay leedahay hala yareeyo hala joojiyo wiilku wuxuu haystana ha laga qaado adig kugu dhiqi lahaa oo uu gurigiisa ugu talagalayba adaa habeen qura ka furtay oo hotel iyo qurar iyo qashaabiir baa wixiiba ku dhamaysa waxaan oran lahaa gabdhaha Soomaaliyeed iyaguna dib hay isugu noqdeen oo waxay ka tanaasuli karaan ka tanaasuleen guurkan qaaliga aan hala joojiyaan oran lahaa qaybta raggana idinka uun ayaa ka wada hadli doona oo waynaad waalidka wacyi gelisaan oo u sheegtaan waxaan inaan wax fiican ahayn adiguna aad ka waantowdaa inaad waxan oo kale samaysid soo hadhay ragga caayay hablaha horta nin gabadh caayay wuxuu caayay waa hooyadii iyo walaashii iyo tuu qabay waa saddexda uu soo arkay uu la soo noolaa gabdho oo dhan muu qabin gabdho oo dhana lamuu soo noolayn adduunkuna wuu leeyahay naag baaliya naag waalan naag qaylo badan naag edab daran iyo naag xunba aniguse waxaan isleeyahay meesha ay u heermeen waxay ka xun tahay meesha ay ka cabanayaan ka cararayaan haddii aad 2 kun naag ku heshay ogow 2 milyan in tartiib lagaaga qaadayo badan markaa qura hotelkaadu dhigtay ay ka qarash yar tahay tan lacagtaada in your life urursanaysa oo Marooka oo dhan ka biili doonta marka waxaan oran lahaa wiilashuna waa la guursadaa qofku choice buu leeyahay iyo dooq uu wax ku doonto ogsoonowna kii alla u qoray baa guursanay gabadh Marookaana horta qadarka guurku inuu qadar yahay horta waa inaad ogaataan furniinkuna inuu qadar yahay waa inaad ogaataan Soomaali garan furniinkuna inuu qadar yahay waa inaad ogaataan ninkii alla ugu talagalay gabadh Marooka inuu helo baa guursanaya balaankaaga waa hore la dhigay oo ilaahay meel dhigay kuwa la leeyahay lacag baa laga cunay dee looguma talagelin oo waa laga dhuuntay iyaga ismaqiiqayo ordaye waxaanay marka horeba sii ogeyn buugooda inuu ku yaalay in gabadh Marookaani ay guursan karaan adigoon sii akhriyin maxaa ku geeyo lacagtaada faraqanin ugu shubtay naagta markay gacanta lagu geliyo baa lacagta iska shubtay marka nimankaasna waxaan leeyahay nabar xaq darra Allah uga dhigo ragow hadaad baheerinteen oo heerin Marooka u tagteen bal idinkoo xanaaqsan heerin geline idinkoo faraxsan oon cid caayin oon cid aflagaadeynin heer ma ayaan idin oran lahaa marka hadda waxa loo baahan yahay waa solution gabdho waad aragtaa wiilasha caray la liitaan madaxa wada xanuunay dhiig baa ku wada karay cabasho fara badan bay sheeganayaan kuna sidaas la eg in kanaad sheeganaysaa oo meesha isma dhaanta iyo dhasheeda ayaa isugu yimi waa inta xune in wanaagsan oo sharaf leh oo reerahooda haysta oo guryahooda haysta oo dhaqanaya oo ku faraxsan baa wali jira on cidna caay gabadhna aflagaadeynin gabadhna waxba ka sheegin marka waxaan idin oran lahaa meel dhaxbal la isugu yimaado wixii la xalin kara ha la xaliyo gabdho waad ogtihiin raggan guri bay ka soo baxeen walaalka sidii loo dhaqaaleyn jiray sidii walaalka loo wadi jiray sidii walaalka loo koolkoolin jiray waad ogtahay adiguna isla markiiba qaylo damba ku siinine bal step by step ninka waxaad soo bartaa xoogaa yar in uu soo yara jirco hadda kiin ka keentid oo booyaasa keentid dee yeeli maayo ma nin boqor gurigooda ka ahaa baa booyaasa halkan ka noqo kaa yeelaya waa marka tartiib walaale macaan sidaa weeye keligeen baynu nahay caruurtu waa keligeen hooyo inooma joogto aabba inooma joogo walaal inooma joogo inaga quraynu nahay ubadkan inagu ina sugayaay aynu wada korsano si yar oo tartiib yar baa qofka loo soo dejiyaa ilaa uu bal positionkii aad la rabtay ka imanayo idinkuna qarra iyo awood aydnaan lahayn iyo naago xunxun waa jiraano awoodan iyo booliskan iyo xoog ka dhiganayo itaal ka dhiganayo ku abayuusa ragga qaar rag wanaagsan oo reerahooda dhaqanayo oo naaga edab daran heleen way jiraan taas been ma aha laakiin ma badna laakiin ragow idinkuna waxaa laydinka cabanaya dhibaato fara badan af xumaa laydinka cabanaya dil baa laydinka cabanaya
dhaqaale daraa laydinka cabanaya caruurtiinayadana waxba siinayn dhibaato idinkuna waxaa ku dhigteen mar allah markaa gabadhii kala tagtaan ba caruurtiina tuuraysaa caruurtan adaa dhalay aday berri ku anfacayaan aday magacaagi wataan aday qabiilkaagi wataan aday sharaftaadi wataan xitaa haddaad naagta kala tagtaan caruurtaa dhexda u xiro la kori meeshaad doontid adigu mar ama guurso ama iska joog iyada ama ha guursato ama ha iska joogto lifekeeda free u sii iyaduna ninka lifekiisa waa inay free ka dhigtaa oo ciduu doono shukaansan karo ciduu doono guursan karo aniga iska kaale adduunkani ma jirto gabadhay cid la leeyahayna ma jirto kaad dhashay baadan celin karin oodan u talin karin marka waxaa idin odhan lahaa gabdhow idinkana waxaa laydinkaga cabanayo iska bedela ragoo idinkuna waxaa laydinka cabanayo waa inaad iska bedeshaano caruuraha darbiyada taagan eed ka wada cararteen aad ka wada cararteen waa inaad ka warhaysaan waa inaad la socotaan adoo guursaday adoo ilmo kala dhalay waa inaad caruurtaadii wadataa kuwaagii waaweynaa ka warhaysaa waa inaad jaamacadahoodii ka warhaysaa waa inay meeshay lug dhigayaan ka warhaysaa caruuruhu iyaga ragga weliba wiilasha weliba aabayaashay ka baqaan waa inaad la socotaan oo hooyadii ku dul ilaalisaan inaad hooyadii ku dirtaan oo nolosheedii ku cadaabtaan ma aha ma odhanayo anu rag waa wada xun yahay dumarkuna waa wada xun yahay odhan maayo qaar baa xun qaarkaasna ilaahay ha soo hadeeyo labada dhinacba baan leeyahay laakiin meel dhexaan la isugu iman karaa oo waa la wada hadli karaa oo waa la wada tashan karaa oo wixii xumaaday iyo wixii qaldamay waa la wada sixi karaa haddii la kala tegayna ilmahaasaa la wada korsan karaa simple of that maaha in la iscaayo in la is aflagaadeeyo maaha mar kale mar labaad waxaan kusoo celinayaa wiilasheena anagu waanu dhalay waana la dhasheen waana dhaleen waanu dhaxnay waanu jecelnahay xumaantooda iyo xumaanta ku dhacaysa iyo dhibaatada ku dhacaysana waanu ka xunnahay waanu ka danqanaynaa hadda oo nimankan marookaanka ah bal wax khayr qaba ilaahay ha idinkala kulmiyo guurka khayr qabana ilaahay ha idinkala kulmiyo anigu waanu idiin soo ducaynaynaa meeshaad ku faraxsantihiina waanu ku faraxsanaa